jenaraal maxamed nuur galaal mar kale kusoo dhawaaw xalqadii hore waxaad nooga sheekaysay dagaalkii 64 iyo sidii wax u dhaceen waxaa kaloo nooga sheekaysay diyaarintii jabhadihii xornimo doonka ee Soomaali galbeed iyo Soomaali abow iyo sidii Itoobiya ay u galeen oo dagaalka uga qayb qaateen halkaas ay ku ekeed xalqadii hore oo adigana madaxweynihii markaas jiray Maxamed Siyaad Barre oo mas'uul kaaga dhigay howlgelinta iyo tababarada jabhadaha markaad ka dalabtay ciidankii inay hawl galaan oo dagaalkii ay galaan maxaa dhacay waxaa dhacay u horeeyay horta news ahaa intii aan jabhadaha iyo intaas ku mashquulsanayn ayaa ruushkii iyo xabashida is afgarteen xeer salaasa meeshii ka baxay ninkii Mengistu ahaa wax alla wixii Itoobiya madaxda ka jiro dhan ayuu laayay wax yar ciyaal iyo asaga soo haray fiilashiinayso markii hore noqday xisbigii shuuciga shiinaha ayuu la xirtay ruushka lama xiran xurgufna waa ka dhex taagneed labadooda ay markaas ruushka si carooday arkaas oo maray Mengistu waa markuu qabaar xagga ku mashquulay Shiiniiskii ayuu wuxuu arkay inayan isku miisaami karin ruushka iyo Shiiniisku kala culus yihiin inayan markaas Shiiniisku heerkii u taagnaa inayan u dhigbi karin ruushka ayuu gar markaasna sanadkee la joogaa sanadkee la joogaa markaas waxa waaye 76 la joogaa 76 waaye bilowgeedii way ruushku waa isbedelay Mengistu markuu arkay inaan Shiiniisku ayaan wax weyn qaban karin ayay dhinaca kale isu rog fag buu inta yiri oo dawladda aatay ayuu Brezhnev hoosta ka galay lagu qabsaday nimankan wax alla waxa rabtid leh weydiiso nimankan iga celi nimankan Soomaalida horarka igu soo inuu isaguna soo diray ma oga bas ninkii nimankii waa okay baa la yiri markaas waxa nagu bilaabay anaga hadal nagu bilaabay juuqa ruushkii baa idinku bilaabay maxaa ka mid ah asagu toos noo walaamay markii hore wuxuu soo adeegsaday Kuban iyo Bulgaria xisbiga shuuciga Bulgaria xisbiga kuwa afartameeya waxa la keenay waxaas iruuraca oo Bulgaarka xisbiga inta wadaaga Soomaaliya ay dhex galeen la yiri ka dhaadhiciya in la joojiyo dagaalka lagu hayo kacaanka Itoobiya colaadda Soomaaliya iyo Itoobiya oo labaduba kacaan ka curtay anaga Kubankii aan la soo adeegsan Kubana awalna la joogay garanaysa oo intii horeba aan saaxiib ahayn ayaga la soo adeegsan oo soo taabto ayaga soo lagu bilaabay annaguna waxaan aragnay waxaan ruushka wata annaga hawshayada ruushka wata adinka xuma ogeedeen oo ku jikaarayna ma ogtahay marka asagina ma hadlayo kuwan xunka markii arrintii halkaas kuwii la soo diray ay ku jirdabeeshay ayuu toos hadal nagu bilaabay ruushkii wadilay joojiye nimankii isbeertayaalka ahaa iyo generaal waxa jooga markaas xagga siyaasadda ka socda oo ruusha jooga iyo kuwii awal militariga u joogay xasan generaalkii waa maaragtay lecture saan waay hanta wadaaga maaragtay in la xurmeeyo kacaamada in la xurmeeyo saan waay meeshaas kacaan baa ka qortay maaragtay raashiyada hanuun soo idin galay hanuun noo galay soo noqon marka Maxamed Siyaad waad u timid jabhadii hawshoodii markaa dhamaysay ayadoo wada xaajoodada ruushka iyo waxaasna ay jiraan iyo kacaanku hays raaco Itoobiya kacaanka curtay iyo kacaanka Soomaaliya ayadoo tii taagan tahay maxaa is dhahdeen markaas aniga iyo jenaraal Maxamed Siyaad
wuxuu yiri waxaa markaa tiri jabhadihii hawshoodii waan diyaar waay hala galo yiri amar u baxshay hala galo ciidamadii hala diyaariyo ciidamada Samatar toor ciidamada hala diyaariyo uu fadhiyay markii hadalka aan isleeyahay ciidamada diyaariyo hadda diyaar wiig ka bacdi ciidamada hawsha galeen ayuu amar ku baxay bas kada laakiin hala diyaar balaan baa la rabaa balaankii xarun ma jira miya markaas hala diyaariyo iska socdo oo iska dhaha ninkaan adaguna ali Allah hawlaha oo si fiican ugu dhuun daloolay cali Samatar ma hay cali Samatar ilaa xad waa dhisnaa ilaa xad waa dhisnaa laakiin doqon oo ma shaqaystaa oo caaj low ayuu okay inuu sheekeeyo kaliya ku ficil laakiin aqoon waa laha aqoon ku filan ilaa xad waa laha سيدي يا شان مرك maxaa dhacday madaxweynaha haduu amar bixishay ciidankii markii kii amarka la soo siiyay xaruntii uu soo noqday hadii markaas waxa tahay wasiir ku xigeenka gaashaan dhig laga dhigay waa ahay marka jabhadihii aad soo dhameysay wasiir ku xigeenka gaashaan dhiga laga dhigay dagaalkiina amar la bixishay Cali Samatarna waa wasiirkii gaashaan dhig maxaa sameeyeen marka waxa la soo yaday waxa la rabay markaas in xaruntii ay shaqeyso abandulku inuu shaqeeyaa la oo qorshihii diyaariyo wax diyaarsan ma leh waxa ka daran meel xaafis walba isbeerta ruushaha fadhiya khubradii ruushka nin dhaqaaq kara waa nin walba fiirinaya saan u fiirinaya iyaga la socda dhaqaaqiis warseel la yeera waxa la yiri waa in la helaa hal nin oo kaliya shaqeeya yaa dhahay saas meeshii ka dhalatay xafweyne iyo bahalkan ama Samatar iyo hal nin waa in la helaa oo meel cilla inta la geeyo isagoo qorshaha sameeya marka waxaa la istusiyay baahida loo qabo qorshe dagaal iyo cidii dejin lahayd si aan sirtuna u bixin Samatar ay yar xoriyana galaal hadda meeshaan wax ku dhaama haynee maaragtay habarteeda ka taareer ma yeelayo qorshii samay ku yiri Cali Samatar ma yeelayo markii waa dhib meeran kii u tagay madaxweynihii uu diido yiri nin kalena ma hayno maxaad ku diiday markaas waxaan ku diidayay horta asaga waa ku xumeynayay inta kale aad iyo aad complicated u tahay waa arrin adag oo dhib badan adigoo maaragtay kasta diyaarsan tahay maaragtay ciidanka cirka iyo ciidankii badda iyo ciidankii difaaca cirka iyo ciidankii dhulka waxaas oo dhan iyo logisticadooda iyo waa arrin culus aad iyo aad oo la rabay hogaamada inay ka shaqeeyaan hogaan walba xiisa soo diyaariyo ganacsiga ciidanka cirka wuxuu soo diyaariyo in la yiraahdo hal qof soo diyaari hal qof la yiraahdo waa urgent shaqo waa aad iyo culus arrin culus anyway maxaad dhacay waa yeeray wuxuu xamsiyaada ku yeeray war hadda miyaa isku soo jeesano weeray wixii aan wadno dhan ciidamada adaa og bahari kuwaanuna xoolo ma oga waa kana xoolana ma ogana waa leeyahay iyaguna mas-uuliyadda u dhiibay xoolana ma ogana waa leeyahay aabbaha was ka foon war ilan heen alla maxaan balaaya maxaa dhacay marka uu ku yeeray waa i yeeray ilaa sameeyo weeri waayahay meel xamar dhinacaas maaragtay warshadan baastada maaragtay hore meel oon galbeedkeedaas ana sidii aana garanayn meelay tahay ayaa la dhigay xafiisir laga sameeyey waad aqbashay markaad aqbashay inaad samaysid qorshihii ayaa lagu diyaariyey xarun dad kula shaqeeyay lagu diyaariyey ma kaligay ayaa xafiis meel laga siiyay waa sheegay barkay inay baxdaa la diiday waxaan qarsoomaynaa qarinaynaa ninaan waxba ka qari karin ayaan wax ka qarin oo ruushkii hay kalaam leel weey
meesha lagu geeyay meesha la geeyay oo muqdisho geeskeeda saddex bilood ayaan meesha isku jiray kaliga lagu geeyay maxaad samaysaa saddexda bilood seed maababkii iyo ciidamadii iyo amarkii ciidanka la kala siilaha iyo mid walba meeshaadu aadi lahaa iyo waa xulusta qorshihi dejinay dad ma u baahatay in aad heshid adigu waxa u yeertay kuwa cirka iyo kuwa badda iyo waa u yeeray hay amar la siina waa loo yeerayaa taliyaalka marka waxbaad weydiisanaysaa waxaas ii keenaad leedahay hay marka waa qiina waxa maaragtay ciidanka badda waa ogahay maraakiibta ay hayaan waa aqaanaa meeqa markabay hayeen baddu markaas waxay ahaayeen 4 gantaalo xambaaryaal oo maraakiiba iyo 4 torbeedo bahalna siluurayaalka tuura siluurayada bahalka sawaariiqda oo hoos marta waa gujiska kuwa la dhaho sawaariiqdaas gujiska ma aha submarine ma aha waa bahal ma arkin oo baabuur maraakiibta waaweyn ay marka kale ku ridaan miyaadan arago badda marto oo ah siluura la yiraahdo okay marka 4 iyo 4 8daas haysataa 8daas oo madaafiic wada ay midoo gantaalo tuuraya ilaa 50 kilomitir gaaraya midna siluurooyinka ay ridayaan oo markaad aragtad ku siluuro badda biyo dhexdeeda maraya ilaa ay ka qac ku tiraado ka markabka cadow marka 8 markab oo madaafiic wata ayaad haysataan waa badda Ethiopiana badda markaas Eritrea haysataa baday leedahay adiga kuwa gantaal xambaarada waxa ay saacadaas berbera ka baxaysa ay kuwa gantaal xambaarada berberay degan yihiin saldhigooda waa berbera hay kuwa waxa la dhihi jiray kataryaalka oo oo saluurooyinka tuuraya na waxay deganayeen Kismaayo marka kuwa gantaal xambaarada baan adibka saacadaas berbera ka baxaysan casirkii markay duhurka markay tahay ciidamada cirka Ethiopiankana waxaan rabnaa inay arag adink heegana geliseen qorshiya u soo noqon doonaa taas marka intaas ciidanku baddu yahay cirkana maxaad haysataan cirka waa badnaa dawlado badan ayaa jira intii gaarayeen qiyaastii xasuusatiin dhowr iyo 20 ay ahaayeen diyaaradihii miiga oo isugu jira 17 iyo 21 miig 21 iyo 17 marka taangiyadana meeqaad haystaan markaas adiga taangiyada cusub aan wadanay waa 4 urur ay ahaayeen T55ka iyo 3 urur oo ah T34 oo kuwii hore ah okay marka 34 oo T34 T34 oo kuwii bansarkii Jarmalka eber ka dhigay marka waa qadiim laakiin waa qadiim adinka markaas wax cusub camal ay diin markii hore oo dhan waxay ahaayeen Afrika wax haysta male markaas adin kaliya ka haysataan anaga kaliya taangiyalkaas waxa la hal guuto iyo 2 urur oo darki meeqa waay aad haystaan taangiga adigu 9 waa guutadu waa 9 waa 3 ururki waa 31 xabo ururki 31 taangi marka la isku daro waa 100 iyo waxa weeye maaragtay kuwan oo T34 waxa waaye 4 urur oo 100 iyo saayid kuwa kalena waa sidoo kale 4 urur ay ahaayeen soo 200 iyo xoogaa taangiyad haysataan waa garto waa ismahadeen waa ismahadeen aad iyo aad hay madaafiicdana maxaad haysataan goobta amal aanu haynay da sodonka ku u dambeeyay la keenaa balaayaa oo maxay ahaayeen noocay ahaayeen xale yaa dhowr urur bay ahaayeen hadda ma xusuusto tiradoodii oo waxa la dhahayaa da sodon shanta boqol iyo soo gaaray ridadiisa 18 kilomitir ayuu wax ka dilay laakiin madfac fiican buu aad iyo aad meeshii lala galo meeqa qiyaastii haysataan da sodon dal xoreeya loo baxshay dal xoreeya dal xoreeya da sodon isaga ahaa
janta 22 da 30 oo ها maarag da 30 boqol labaatan iyo laba waaye da 30 oo da 30 da marka waxa watay badidu waxa watay ururkii horeeyay oo si fiican ugu dagaalamay indha qarshaha indha qarsh ayaa taangiyada madax ka ahaa maya ururka koowaad maya wuxuu madaaficda da 20 madaaficda da soddonka aad u yaqaana feerto ku ahaa si fiican u bareen ciidanka lugtuna imisay gaarayeen markaas adiga soddon kun ciidanka 30 kun ay ahaa taangiyaduna dhowr boqol 200 iyo xoogaa madaaficduna qiyaastii wallahi taas ma sheegi karo waa iga lumeen markii korkan ka diyaaradahuna 20 iyo xoogaa dhowr iyo 20 ay ahaayeen marka intaasaa kuu soo baxday ciidan intaas tiradiisu la egyahay iyo madaafiicda iyo hubka haystaan iyo noociisa etoobiyana maxay haystaan markaas intaad og tahay wax maaragtay waxaas u dhigmi kara waxaa ka jirtay hal guuto oo guutada tobnaad la dhahaya oo etoobiya oo jigjiga deganayd garab case meel garab case la yidhaah ayay deganayd taasaa waxay haysatay 2 urur oo taanki ah iyo 1 urur oo ciidanka halka urur waa imisa taangiga marka adigu waa noocaas oo kale waan maleynaa inuu ahaayo waan u maleynaya adigu kulli markii la isku socday kontameeyay wateen taangi oo M60 la yiraahdo M60 Mareykana Mareykankaas siiya guutadaas ugu xoog badnayd guutadana hadee waxaan adigu haddii alarm loogu dhifto 10 daqiiqo ka bacdi waa ogaa jiray meel kasta joogo sirdoonkiina uu idiin sheegay inay dhaqdhaqaaqooda la socotay qaas mid ahaan ag dhignay ilaa iyada un baa maaragtay waxaan shaki ka qabnay ka jirta aan u soo noqono marka General Galaal meeshii aad lagu xareeyay cidda rabtaad u yeerataa qorshihii dagaalkaad guda gashay 3 bilood ku jirtay 3 bilood ku jiray 3 bilood markay dhamaatay waxaan bilaabay wareeg inaan baalihii qaybiyo dayradan qaatay booliis leeyahay qaybaha dhan baan maray si aad u soo aragtid amarkii la soo siinaa okay markii waa la soo siinaya maabka amarkan waa kana meeshaas weerar waxaad dhammayseen sidii dagaal waajibaadkeedii markaa 3 bilood ku dhamaatay maxamed siyaadaad ku noqotay qorshiyaad gacanta ka saartay soo wareejiyo yiri dagaal galay dad wad waa waday galow ku yiri dagaalka ya muxuu ku yiri markaa qorshaha u geysay diyaar waa hal galow yiri yaa abaanduul noqday marka abaanduul wixii horeysa يعني سيدي دور كلا يجي أنا يا أسوي أسكت هرني مركزته أديك إياه يا فوين هاي بالك كوي يا سيدي مش ويشوا سوان تري قال لي شبنا يارو وبحشة هو واجب كوسار أديك واجب كاغر دقيق واجب هو إذا ماذا دقال قلي كوي إذا ماذا دقال قلي وات حى يقول واجب كسسي كرو كنترول انت شقadaas ku diray dagaalkana gali kun control amarkan yaa siina macna xaqiiq amarkan yaa bixina dagaalka aniga soo bixina aniga ma warro asoo inay hadlaan warrabaan wax kaliya ma u yaari cali samantar marka waa fadhiya markuu saas leeyahay waa fadhiya cali samantar iyo geele meesha waa duurka la isugu tagay geelana banduulo ku magacaabay marka rabsha waxay dhacday markii ciidankii matalan frontigan waajibaadkii siideen kulli meel kasto la joogo ya ciidankii waajibaadkii baa siisay waa u geeyday qorshihii dagaalka awal waxay amarka igu siiyay qaybaha dhan inaan anigu diyaariyo okay dagaalkooda iyo qorshahooda sababtana markaan soo noqonay yiri qaybta 26 salxaana diyaarinay iska daa oo hargeysa fadhida markaas iska daa buu hay anigu cunayskaas
laakiin waan ogaa inuusan waxba u diyaarinayn aniga waxaan diyaariyey dhinaca koonfurta joy goday iyo qabri daara noogu daraa labadaas labada meelood oo waaweyn oo ciidanku fadhiyey saan ku sheegay dayuuradaan qaatay waxaa la yaab lahayd dayuuradda waxaa waday mid majeerteena markaan dhuusamareeb ka soo kacoon raba inaan qaybtii lixdamaad aado ayaan kii taliyaa xagga xarunta qaybta lixdanaad waa Baydhabo waan la hadla waxaa ihi luuq imow markii Baydhabo kuwiyaa jooga isbeertayaalkii ayaa jooga ka dhuumanaynaa khubradii ruushka marka luuq imow baan ihi kii duliyaha ahaa luuq igee baan ihi markaan dhuusamareeb ka soo kacayna muxuu sameeyey wiilkaas muxuu sameeyey wuxuu dabcay inuu aniga igu dejiyo doolow garoonka xabashida adi cid kalena kulama socoto kaligaa markaan wardiye xataa ma wadatid may wate doolow markaan korta oo aan maaragtay awal warqadahan fiirfiirinaya ma ogtahay ay saas soo degtaan saas u dhigto dhulka markaasaan arkay saddexdii webi meeshii isaga imaanayeen waada qootay wada markiiba waryaa meeshaan waa xaggeed meeshaan waa dolow baa waryaa kici waa igu qosla uu yiri bastooladaan la baxay yaan dhafoorka ka saaray isagii markaas tolay haddaan ku geyna ralliga tali tuugna wuxuu dabcaa aniga iyo warqadahaas aan wadno inuu xabashada gacanta naga geliyo oo halkaa idinku dejiyey aniguna waa gartay dhulkaan ilaa dhul yaqaanaan ahaaye isagoo qarqarayaan ku soo dejiyey igu soo dejiyey marka baxaan iri erod halka markaan luuqa degnay aan iri bax soco orod aad ma aada ribood gareen lama xirin tuugeed maxaad samaysay marka ya waad soo dhammayday qorshihii baad siiday waktiga xabadda ugu horeyda la ridayo ma qorshaydeen iyo maalinta 23 Julaay 77 saacadduna tahay maqribkii bay ka dhaqaaqeen maqribka qolo walba dhaqaaqaysaa sideed u qorshaysay marka sideed u qorshaysay in loo galo dagaalka marka kuwii qaybta 21 waxay aaday abradaare toos u aaday macal taangiyadoodii madaafiicdoodii iyo ciidankii lugta god tii lixdamaadna oo ku xoojinayna waxay aaday goday tan bay aaday qabridaare waxaa wata mid cabdicanuuq la dhihi jiray oo diraha tan godayna waxaa aaday in aftooji abukar aftooji nin fiican u ahaa shideenti marka goday markii waxaa qashqashay dayuuradii xabashida marka maalintaas wuu ka joogsaday 23 qabridaare maqribkii waxaan waagu markuu baryayay ayuu dul tegay cabdicalow oo soo aroorna uu yiri oo ila soo hadlay waa soo aroornay waa taaganahay haddaan maaragtay degaynaa markaasuu afweynana waa ila ag fadhiya iyo labadii kale maxamed siyaad markaasuu yiri amar sii hadeer dhaqaaqadhe gala markaasaa waraabti hadeer ma geli karaan see waaya soo inay dhulka arkaan oo waxaa saamiyaan maaha soo inay baabuurta taangiyada iyo rashidaal ku shubaan maaha xalay dhan 400-500 kilomitir ay socdeen ukaadi madaxweyne faaruq marka ma socda ariya waxa maqlaysaa socda dhe kii baan la hadlaa ariya soco
markaa saan ku socona haddeeraa baan wade shan waay adiga waana oqon fiican u dhalaa ninka cabdi cabdicalow waa gartay oo in lagu ag taagan yahay taliya saan yeela waa ogtahay inay sidaan sheegaysa in almirda wuxuu yidhi intaan madaaficida meel ka rakibanayo aan ka rakibanayo aan dhahay halkaas dega ilaalana darsanayo u arkayo waa indha qarshahan intaas keliya ay ogolow buu yidhi aniga keliyaha maqlaha ma ogta ayaga ma maqlayaan markaa ha soco gal waa yahay sameey baa soco sir wuxuu ku yidhi waa galaha uu yidhi wuxuu keenaa aragne adigu marka 23kii uu rakibtay 23kii June 77 July maxaad u doorteen 23 wiilkayga cunadka ha dhashay cid ogeed lama arko marka male colkana waxaa la yidhahdaa feer aara la dhihi jiray ciidanka halkaas galay ugu horreeyey ciidankaas oo galay qabri daare feer aara la dhihi jiray feer aarle feer aarle waxaa faras aan lahayn oo baxdo aan jeclayn aad u jeclaa marka inaan la garanaad ugu tala gashay kelimada sirta maxay ahayd marka afgaradkiin afgaradka iyaga waxaa wareer baa dhacayoo maaragtay waxaan lahayn bahal oo kood oo jifraari ah sifar oo maaragtay qarsoon ayaan lahayn oo caraweela la dhihi jiray caraweelo ruushkaa noo soo sameeyey marka waa muusig miya ya baaqa qarsoon baaq qarsoon ma eraya ma magaca maya waa hadalka dhan waxaad rabtaad qoraysaa waxaad rabtaad ku qoraysaa markiiba uu qarinayaa uu daboolayaa system ay idin siiyeen caraweelo la yidhaahdo caraweelo u bixiseen ruushka idin sameeyey ruushkaa noo sameeyey laakiin ruushkii sooma aanaan dirin asagii caraweelo ma haysto waana maqlaano maxaa sameydeen marka horta bahalka waxaa weeye waqti dinaamikada ah sideedaba wax weyn lama qari karo waqtiga mar haddii dinaamikada laga saas markii dhabta la gaaro wax badan lama qarin karo lama qari karo waxaa la qariyaa inta lagu jiro organizationka meelahaasa la qariyaa laakiin haddii hawshii la galo tala fara ka baxday maxaa samaysateen marka toosan ula hadlay gal iyo waxaasay ahayd marka fooneeyaadna ku xiriireyseen ya bahalkan raadiyo weyna ay dhigan raadiyahaad ku xiriireyseen mawjadahaasa iskala hadlayseen ya mawjadaha raadiyaha iskala hadlayseen bosimnaasada la dhahayo garanaysaa raadiyo weyn waxa weeye oo intercontinental oo ruushku idin siiyey oo ruushka marka midna meesheedu ku rakiban yahay oo midna qaybaha wata okay halkaas ku soo dhacayaan wax oo dhan halkaas ku soo dhacayaan sidii dagaalkii loo galay lagu galay 23kii marka maxaa dhacay markii uu yimid waxaan hadda dhagax qabri daharana saasay u gashay goday dayuuradii qashqashay waa inaan dayuurado korgeynaa dib bay u dhacday iyadu berri diyaaradihiinii dagaal waa qaadi waayeen markii horeba ma aanaan dirin ma aanan ogeyn laakiin cilada dambuuna ogaa doono ma aanan ogeyn maxay ciladaad ogaatay aan kuu soo dhameeye markaasuu yidhi aawa dhagax buur iyana maxamed siyaadaa kule halkaanaad ka furtay dagaalkii goday iyo jijige dhagax buur qaybta 21aada maxaa samaynaysaan iri suurada miyaadan samayn ma samaynaa iri oo maxaa jira anigu samayn kuma dhihin waa i tiri laakiin samantara i yidhi salxaana samaynaya markaasuu waa dhugtay samantar maalintaas dhulku inuu la go-o uu jeclaa isla joogtaan markaas waada la farfardhina markaasuu war maxaa dhacay maxaa jeclaysa markaasuu salxaan war ma salxaan baa wax samaynaya uu yidhi annaga maxaa noo aaleysa salxaan waxuu samaynaya hadda waxuu sameeyey uu yidhi waxba
hadeeraan dirayna hadeeraan galaal u dirayna galaal godkaama qodmo daca nacas dhalo ahaa marka taasoo meeshaas see u xallideen marka taas ya sidee loo xalliyey anaa tegay markii dambe aduu ku yiri tag waa tagtay haye markaas qorshe hore laa galnay see u qorshaysaan marka ya waxaan soo diray urur waxaan ka keenay taangi iyo urur ciidanka lugta ah qabri daari iyo urur madaaficida goobta indha qarshahan saddexdaas xaggan ka keenay labana meel halka qaybtan ka qaadanay dhagax buura ku dhufateen marka nimankaas waaye arag ahaayo hadeer markii ilaa ninku ma ogtahay isagoo u diyaarsan yahay waaye aragnimo waa la rabaa ma ogta practical la rabaa nimankaas practical hadii ba qaateen saddexdaas xagga ka keenay meeshii degan waxay kala furteen bahashii dhulkii uu degay midkii madaaficdu maaragtay wixii buu qaatay observationkii iyo waxyaalaha dhulkii 15 daqiiqo markuu la dhacayay ay banaanka u soo baxeen indha qarsha la dhacay 15 daqiiqo markuu ku riday karartii saddexaad markuu ku wado tan koowaad meeshaas ku dhifay tan labaad xagga tan saddexaad oo soo yaaceen ayuu kala yaacaya Toobiyaankii dhinac kala martaan gaalka iyo qashinka iyo balaayo ku kaceen fuf ayaguna waa dagaalameen balaayo ahaayeen balaayo intaas xooggaas kastoo saarnay qaar baan inta wixii dhan ka fakaday jigjiga galay Toobiyaankii niman balaayo ahaay niman balaayo iyaguna kuwaas horta marka ciidankiina aad ku tashanaysaan oo dhan waa 30,000 Etoobiyana waa imsa ciidankeedu markaas ciidankooda wuxuu iska ahaa ebrow ahaa ruushka wuxuu ka qoray haddaad aragto muxuu ka qoray laa ilaaha illa allah ceebta iyo fadeexadda imsi gaarayeen tir ahaan dhowr boqoloo kun ay ahaayeen idinkana 30,000 la ordaysay marka wuxuu yidhi maba nimanka saraakiishoodu ciidankoodii meeli jiraanba ma oga maalintaasoo dhan wuxuu muusikay dheelaya markii maqlaan taangiyada iyo madaaficida soomaalidana dibadday ku dhacayaan taas waa warbixintii ruush ka qoray markii dambe balaayo ku dagaalkii aad gasheen maxaa marka dhagax buura ka gasheen godayaa gasheen jigjigaad gasheen hay see waxaa la rabay markaa feeri qorshuhu laba taabo wey laba waqti laba waji oo kala ahaa laba waqti oo kala waqtiga koowaad waxa weeye qorshaha guudna waa mid detailsna waa u qoran yahay details marxaladda labaad waxa weeye qorshaha guud waa qoran yahay laakiin detailskii ayaa la rabaa in la qoro haddana marka jigjiga iyo maaragtay iyo dirir dhaba iyo waxaa la rabaa in detailskoodii la qoro qorshaha waxaan anigu markaan anaa awal hayay qorshaha guud oon qoray markaan tegaya waxaan u dhiibay geele waa banduule ahaa marka waxaa la rabay inay detailskii sameeyaan ma sameyn iikaadi marka adiga roolka kaalintaadii dagaalku xaggo ku ekaa adiga dagaalkii waad gelisay qorshihiina waa qaybisay xaggee la qabtay markaas marka qoladii dirraba kor maraysay kuwaasaa la ii dhiibay adiga waxaa la yihi maaragtay adugu halkaas dhabar jabin xoog lehay ahayd halkan waa lagaa wareejiyey marka hirgeli lahayd waxay ahayd bahal caalami ah goormo wey markaas xaggee la qabtay marka waxaa qabateen goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur waa haynaa goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur ayaad qabsateen kulli waa haynaa markaasaa maxaa la sameeyey marka waxaa la rabay in la qorsheeyo oo isku mar hadda waxaa simultaneous attacka la rabaa ma ogtahay qabri dahare waxaan dhihi lahaa jigjiga iyo dirir dhabe isku mar in la qabto in lagu dhifto dagaalka laakiin qorshuhu ahaa midka guud
detailskii baa la rabay detailska ka dhib badan wax kasta wax sameeyo ma leh faahfaahintii dambe wax sameeyo marka aan u soo noqono si aan u fahmo markii magaalooyinkaas la qabtay oo maamul loo sameeyey adiga waxaa lagu dhiibay kor ka soo wareega leeyahay shaqo waajib cusub lagu saaray muxuu ahaa waajibka cusub inaan dir dhaba kor ka soo galo marka dir dhaba awal hadda deegaanka si fiican uma aanaan garanayn dir dhabe hay deegaanku waxa weeye waadiyaal iyo buuro iyo godad iyo jini waana waqti roobna ku abaaranay marka raaca hore ciidankii markuu raaca labaad weli wuxuu joogay Loghaya waxa in la soo raro oo la keeno yaa keeni lahaa xaruntu inay ka shaqeyso detailska qorideeda iyo ciidankaas soo raridiisa labadayba male waxay ahayd Agosto 12 ay ahayd in dagaalka la galo dir dhaba iyo Jigjiga 12 male 13 male 14 male wax kula hadlaya male 16 la gaaray August marka waxaan inaan galnay meeqa ciidanaha wadataa markaas adiga laba urur oo taanki ah iyo laba infantry ah luga ciidan tiradoodu waa imisa kun markaas iyo urur madafacda goobta iyo bateri ah BM intaas wadataa xagee tagtay marka horta nimankan wadayaalku dhul banaan ay bahalku ku wadi jireen ma oo barteen ee taangiyada iyo waxaas dhul gab afar hadiiba gadoontay waa gartay marka uma u jeedo ma yaqaanaan cimilada dhulka ma yaqaanaan bahalku feere waxa waaye bahalku 30 mitir wuxuu u soo dhaafa ma arko waa ka indhalaya geedana waa ku jiraan 30 mitir ka shishana wax dhaxa kuma arko markuu 30 mitir u soo gaarana ma arkaba qib oo ku dhacayaan god gab waa rogmana bal taanka rogmaday adoo kaala الآن ماشي يالين marka dhibka ugu badan wuxuu idinka qabsaday cimiladii deegaanka inkastoo saasta waa galnay waa tagteen waa qawan waa la qabtay airportka tagnay dirrab waa qawanay dawladii oo waxa Ethioopianka oo waxa jiray aad horta u tababar meesha kaliya tababaran ciidanka cirka waa si daran u tababarna ciidanka cirka Ethiopia dawlad fiican waa wateen oo F5 leeyahay F5E waxaan u haysanay 4 baabuur oo shilka la yiraahdo oo ruushka geedahaas dawladaha yararka oo inay 2 kun soo degaan ayay wax ma aragtay wax tuqeeya waxtaa geedkana laga horgeeyay waa carartay dibadday ku dhaceen diyaaradihii bateriga BM ka ayo warigeed ayaan arag xabashada qoryahaas aan ag dhignay say u daafacaan marka hada oo diyarad guuraysa labada bahasha markay rido BM ka markii lagu rido xabashadii nin fiican oo maxamed dheere la dhihi jiro oo marixaan oo waawid aad iyo aad baraaw ah sargaal fiican oo borka ka ciidanka watay markii lagu riday fish waa kala yaaceen meesha waxay soo kaxaysteen hal bambar ayay dawlad bambar ah oo Canberra la yiraahdo laba ilaahay warigood labadii mid awal mid Eritrea inta la soo fakaday oo noo kana Hargeysa oo xamar geynay
ayaan haddana kismaayo sii geynay kismaayay taallaa ku baaba'day diyaaradaha middood ya wahala way bambar ah bambar marka diyaaradihii idinkana diyaaradaha waad ka liidateen marka dayuurada kaaga sheekay doonaa marka dayuuradihii yaryaraa waa iska celinay oo xabashida waxa aan wadanaahuna 4 kilomitr ka kor wax kama dili karo halkii bombara haray ayay soo dhaamiyaan 5 kilomitr imaanay diyaaradaha Etoobiyaanku bahasha bombarkaas iyo xayn ilaala ka ah oo ayada ilaalinaysa iyada ilaalinaya dhotto adoo arkaya baabuurtaada mid mar dhotto waxaad kula soo qabateen male dayuurad ku ridana male dayuurad ku imaanaysa male dhotto wara dema everin ka dhigaan wax badan markaa arkay inay saas gelayaan ciidamadii aan arkana haddana meeshaan meel taangiyadu iyo ka dagaalama karaan inayan ahayn anigu ciidankii badnaa waa soo celiyey dirna waa ka soo celisay waa ka baxay anigu soo meeshaan ku haray adaa ku hartay aniga iyo waxaa la haray hal urur oo ciidanka lugtaa iyo 3 taank 4 taank waxay ahayn maaqaan intii kale waa kuwa jigjiga lagu qabtay jigjigaad u dirteen banaankaas waa dhag waaye meesha waa ka markii taasoo dhacday jigjiga sabantar iyo waxay yimaadeen xama waa ka soo duuleen hargeysay yimaadeen adiga ciidankii o dhan marka waxaa la isugu geeyey jigjiga la weeraro waa la weeraray waa qabteen waa la soo celiyey waa la soo jebiyey waa ku noqdeen adiga on dhowr goor markii lagu celi markii dan waa la banaankaa la dhigay Etoobiyaankii waa laga adkaa dayuuradayaa kuu soo haray dayuuraduhu weligoodba dog fighting wax la yidhaahdo dagaalka hawada maba la barinba maba bilaabinba hal dayuuro ayaa 21 eber ka dhigtay hal Etoobiyaan hal dayuuro Etoobiyaan waa maxay sababtana waa maxay sababtana waa markee dog fighting kayana qor inay wadaan oo caadiya lagu tababaro maxay qabanayaan illa ninkaasuna nin jiro waayo oo aad iyo aad u tababara balaayo qaba balaayo eber ka dhigay maalin 6 dhulka dhigay waxaana waa maxay balaayada markaan damboon anoo weli la yaabanba ayaa waxaan arkay midkii taliyaha ciidanka cirka ahaan jiray Yusuf Dheeg ayaa eranay tahay markaas war la ku haysta ciidankan weligood dog fight kala baray oo maxaa jira waxaa baray soo waxaad siyaada diiday se ku diidaya waxaan dawacno weerar inaan keensano 2 nin oo Bakistaaniin ah oo nabara dog fighting dayuuradaha nafteedan ku baranayna hay ugu barayno arrinta kan hawiyo meesha soo dhawaanaya dog fighting ugu baraysa oo dog fighting asoo waxa dhibaato ugu jira ila dayuuradu waa taagan ninkan waa kulli waa duulay hadduu dheelaha maaragtay amnigiisa wuxuu marka in inqilaab lagu qabsado wax dhibaato oo ku shaqo dog fighting iyo amnigiisa maxay isugu jireen waxaan la yaabo dog fight niman wuxuu ku tagay nimankaas ciidamaas in la laayo waa gartay haddii aan ka gudubno marka oo imaam marka dagaalkii jigjiga waa la qabtay dhagaxbur waa la qabtay goday waa la qabtay dir dhawaa dhiman halkaas markay marayso see wax u dhaceen haddana aniga waa la soo waday waxa la keenay meel jigjiga la keenay meel kaara mar dhaleero in kaara oo la mari la ayaa la yiri bal asaguna oo aan la qaban wali kaara marnadeeban waad jirnay بالحاده ولا يرادان تقنوا وكغدبنا كار مردا meel waxaa la tegay
togan la yiraahdo Faafan ayay dhinaca shishe ka joogaan meel taagaha waxaa saaran hal madfac oo 155 millimeter ah oo taanga ah sixta inta la yeelay bahalkaas la mari waay markaas hadda waxa waa nagu yaraatay rasaastiina waa yaraatay bahalkaanuna wuxuu tegayaa ilaa iyo dhowr iyo 20 kilomitir wax ka dilayaa annagana midka noogu kii 18 oo hadda la jiidayo hal kolba soo rido dadka kuruuga dadka madaaficda ridaya oo eber ka dhigaya asaguna qanfilan ku jira oo taangi wax kasta ku rido ma jirto halkaas intii muddo markaan joognay anigu meeshii aan ku noqday xaggaas aan ku noqday dirrabe marka waxaa la yiri aniga wax fikraa male aniga marka qorshaan soo jeediyey oo ah hadda caqli baahan inaan haatan annagu midowgii Soviet iyo iikaadi marka intaad caqliga soo jeedin dhulkan markaa qabsateen ood haysataan ruushkii isbedel uu sameeyey si toos oo dagaalka waa ka u wareegay dhanka Ethiopia maxaa dhacay markaas ruushkii wuxuu si toos ula saftay Ethiopiankii maxaa ka horeeyay la safashada ka horeeyay waxaan maqalay anigu hadda halkaas jiray uu yeeray ruushku war dagaalka joojiyo wari aan idin dhexdhexaadiyo aan dhexdhexaadiyo inta aad hadda haysataan qaata anaa ka dhaadhicinaya inay intaas ka samraan waxaa idin hartay 2 ama 1 gobol waxaan dheelahay magaalo maxaana idin harsan markaas labada magaalana waa idin wada hadal siinaya markaad u qasaartaan hal waa helaysaan dadna labadaba helay waxa waa Dirrabe iyo Harar markaad u qasaartaan hal waa helaysaan waa gartay anigu ogaadana anigu adinkaan idin la jiraa anigu idinkaan idin la jiraa afkooyna waa diiday waa gartay markii durbaana laga garaacay maxamed saad waa diiday muxuu u diiday bal adigu sheeg wuxuu u diiday muxuu u diiday dawladda dog fight kala baro muxuu u diiday waxaa dhici karta inuu islahaa waad guulaysatay waad helay inta kalena xoogaa ku helay soo lagama yaabo sidaas maya been baa loo sheegay waxa la American baa wax walba noo haya marka American isku haleeyay been ayaa kuwa safaaradda Washington joogta iyo kuwa xamar joogay oo anti ruush ka ahaa weligoodba ayaa durbaan la booday yiraahdo aqbalin madaxweyne marka waa ka diiday ruushkii waa ka diiday marka asaga codsaday inuu maaragtay inuu arko sida la leeyahay hay'adaha yiraahdeen uu tagay maxamed siyaad xaguu tagay Moscow intii xiriirka la kala goosan waayo waxaa loo diyaariyay inay la hadlaan prime ministerka Kosigi la dhihi jiray iyo midkii xisbiga shuuciga ideolojiyada u xisaabsan Suslov la dhihi jiray oo dheer Suslov qoway aad moodo qoway iyo mid la dhihi jiray Gromyko Andrei Gromyko oo Soomaalida shaydaanka ka nabcaaday waxaana nagu diray
cabdiraxmaan shacab barro waa Georgiyaanka kii ahaa ya ha kaasuu nacay aan usoo daadegno dagaalkii sidee jabka u dhacay ya marka guul ayaad ku naaloonaysaan soo maaha haddana jabaa dhacay see jabka u dhacay damay anigu waa taa kuu sheegay qorshe waa ogaa inaanaan celi karin hay 20 taanki anagu inoo hartay taangiyadii oo dhowrka boqol ahaa meeqa idin kaga hartay 20 oo keliya hay maxaana meesha Haramaanya la yiraahdo oo 30 kilomitir gudaha ku jirta maxaa jooga anaga waxaan ognahay 180 inay joogto meesha 400 joogta oo Etoobiyaanku wataan ma Ruushka Etoobiya waa laga quusto Etoobiyaankii Ruushka dagaalkii galay waxba loo Ruushka Kuban T55 na Kuban ku u dhigay baa la yiraahdaa MT 64 T74 na Ruushka wada oo toos u galay toos u wada waa ninka odaga generaalka ag fadhiyaan generaal afar laa meeshii la keenay oo taliyaha ciidanka lugta dhan ah wars Ruushka ya rad amiga bahala soo taliskii waa lagala wareegay Ethiopia marka dhulkii qabsateen dir dhabe iyo hararna aad doonaysaan 20 taangina idin hartay ayaa la yiri markaas waxaanu macquul ma aha aanu hal meeshaan yeelno waxaan samaynaynaa 6 guuto gobonimo doon ah ayaan buuraha gelinaynaa inta u dhaxaysa harar ilaa iyo haadaamo gobonimo doon gelinaysaan gobonimo doon gelinaynaa 6 guuto 3 Soomaali iyo 3 Oromo saddexda ormada hoos aadeen saddexda Soomaalida dhinacan sukaa joogay buuraha dhan ha galeen yaan meesha waxba soo griicho dhan dhulka ha dhigeen garanaysa bundooyinka burburiyaan annaguna ciidanka inta yar dib u soo celino oo dhul cilaa qorfa ah oo aan wax istaraatiiji ah oo macnaha oo leeyahay la arag intaan ka soo celino oo dhulkaas ka jigjiga iyo jinacsani intaan isugu soo xirno aan ma aragtay buuxintooda iyo tababarkooda iyo dhamaystirkooda iyo wixii aan galno iyo dayactirkooda wixii taangiga saasa soo jeediseen taasoo soo jeedis adaa soo jeedisay soo jeedis Cumar Xaaji ayaa aniga ila saftay General Cumar Xaaji Masalla وهالك نك اللي يراد صوت رأيه صلاح العركة وبوده ودول كان قصة كان قصة هنا ودول كان قصة دول كهلا جب حد هذين عن هالكاس دفاع كقلنا هاي حالة قيمة يصير هذا قد دفعنا الدون كان أول قيل سنة حس صاحبه ولا أنا ده وإحنا بالطريان ما يحل يا ما دينا دول كان ما كبحنا بابا مركب ورق شيء كانوا جاي أصلا وينه وقرأت بينه وأي بين جوري وهي يقول كوي وشيء يا بالعارض كوي أيوشة أنا ما كحرك أبودي وديدين مركو حويرة بس بدي ديدين والواحد كان عرقني أضو قصتك هذا اللي بسوي بدلي صقروا أنا isdiyaarintii ku jira inaan soo baxo ayaa meesha aan ka imid la soo jiiray dir dhabe la wanaajin leeyahay inta la soo galayaa jigjiga qarka loo soo fariisto yaa waxaan maleynayay ma ogta markaasuu yiri dagaalka hala qorsheeyo dagaal maxaad qorsheynay markaa inta la eeyana la qorshee anigana safaraan oo waaba socdaa waxaan qorsheynaa mala iga tagaa 20 taangi aniga waxaan xaggan qorsheynaa iyo dhowr boqol oo taangi oo ka soo horjeeda diiday waatana wax ka gura adigu kii u sheeg
qorshihii waa diiday buu yiri markaasna laba tagtaangiya waxay leeyihiin salxaana wuxuu leeyahay aniga isaga waa qaybtiisii ma ogta anaa dagaal gelinaa uu yiri anaa dagaalaya anigaa galaya haye ahla wasahla وهي قرشها والسماء قرشها حسب يا قرش maxaa qorshaha sameeya labaatan taankiya qorshaha sameeya maya abu xariiq maya baaraan anti taanki camal ha loo isticmaalo bal wixii kaloo la qaban karana ha la arko xariiq fiiri markay ay ka dhiman tahay waktigii dagaalka markay ka dhiman tahay 7 beri ayaa salxaan yiri lugaa ka jabay log ma soco karo anigu kasale galaala lagu bedelo waa aabihii wasaga tagaanay waa diidi kiya la mar walba loo tagayaa diidine wartag meesha haddii waxay ka soo baxaan aragne waa tegay waxaa jira marka waxa loo maaragtay waa harar waxaa laleeyahay hala weeraro yani xagga koonfurtana in laga weeraro xagga waqooyigana looga soo dhaadhaco koonfurta waxaa jooga waa meesha aniga lafteeda fadhiya mid cali ismaaciil la dhihi jiray oo جنرال علي اسماعيل ولا يقال دشيش ورحلي ما هذا قلنا ما قلس هلا وسهلا كويد كسو ويرر لها كمبل شمالي هذا كسو ويرر لها هرر ايا waxaa lagu qoray nin la dhihi jiray maxamed cali abukar oo dhulbaanta lagu qoray waa loo jeedaa meelaan suicide markaasuu inta galgasho xagga tagana dafla lahaada waa laga bedelay markaas waxaa lagu bedelay mid la dhihi jiray ina lebaxsan ka taabta mid la dhihi jiray mataqaan kaas waa garanaysa kiya lagu bedelay waa iska baroorta waa la bedelay yaa lagu bedelay xaash cali rooble aniga maxaa laygu bedelay salxaan arana wuxuu joogaa jigjiga alla waada beerka u dhaa abukara lagu bedelay caare marka ya عري أبوكر ما لسكو بدله ما عرّ شو بشوجا عرّ أبوكر وحب شوجا هرّ وحب شوجا جودي يعني ده قاصها ماشي أنتينا إسكو حاتين مركا مركا وتشددوا بوحة وي وحمس هذا وهاشي بدشوا قطر وحو أركع عيدا مدان وصول نقطة أوكي وقطر وارك كرسي قطر وارك إلا غير تشوف طلقة إذا كاس أنت ناس إلا أنا تقنو هذه حاجة وقت هرر أنا جا حاجة هرر أفتح شو واحدة لا عار شيك عاش على روح شو أكون بلش تاسع وقت الله صار maxaa dhacay marka alla ya maxaa dhacay marka alla ma oran hadee nimankii waqtiga gabagabeyn waa ma aragtay waa alla ma oranayo meeshii waa la isku dayay waa yar haddii baa la soo sabatar markaan meesha tagay oo wixii fiirfiiriyaan warqad u soo qoray taar u soo diray war meeshaan nimankaan waxba ma hayaan meesha waxba kuma hayne dadkan iyo anigu weli ma ogi in maaragtay ciidankaan ma celin karaa meeshaan ciidanka dib u soo celino kii markaan warqadaas diray ayaa waxaan arkay warqad telegram uu diray
cali ismaaciil oo leeyahay waxaan ku talagalay inaan meel halkaan miino ku xiro halkaasna miino ku xiro ana weeraro oon saas harar ku qabto markaasuu yidhi soco bravo xaggee nus saac intaan laga soo wareegay taarka u diray nus saac intaan laga soo wareegna waa lasoo jafay waa la soo jafay waa la soo eriyay hooyadaa u soo eriyay maxaad markaad lahayd waa soo qabqabanaya maxaad moodeysa sababtan wuxuu u qaatay inaan anigu sabotaaj garanaysay aan erey ka soo baxo isdhiiba intuu soo kaxaystay horin booliisya militaar ah ayuu wuxuu yiri meel la yidhaahdo galaash uu rabo inuu aniga markaasuu yiri cali ismaaciil adigu imaada galaash cali ismaaciilkii uu weydiiyey cali ismaaciil soo hormaro isagoo weydiiyey galaash oreerka waxa uu ima dheeno yiri baalki waana soo muquuri markaas soo istaago gala raala ciidankiina markaan soo baxnay annaga labadeen annaga soo daba yaaceen soo wax ku harayba malcarada markaas gala ciidanka celi ilaahay kugu dhashay ciidanka celi oo maxaad awal noogu yartahay kelmad ima dhihin kale wuxuu islaahay cali ismaaciil wax kuu sheegi doona kan qabo oo wixii la rabay hadduu xagga ku dhiman waayaa soo baxnay adigo ciidanka meel la yihahdo muli ayay isugu soo celinay halkaasaan isugu celiyey waa degeen war halkaas degaan ere bal kuwa yaa yimid geele iyo salxaan iyo haye salxaan hadda waa soco kartaa miya marka ciidamadii markii lasoo jabay xaggee la isugu keeno ya markii magaalooyinka o dhan laga soo baxay waa laga soo meel banka muli la yihaahdaan ku eri ayaan isugu keeno oo meeshii uun 30 kilomitr xagga ka soo xiga meeshaasaan dejinay ku nastaano dadka degan oo karanla deegaanka karanla raashinka xasan uga qaadaba badanoo cuntadii ku karkarsadeen meesha ayagoo meesha soogaanaga ka soo tegay xamartimi xamartimi anoo jooga wax yar anoo markaan joogo laba habeen waxaan joogo maqaari lasoo jiiray lasoo haraati lagu soo dhiftay markaa markii ii yeeray madaxweynihii meesha hadda waa loo balaaya ka dhacday see la yeelaa uu yiri anigu weli waxaa jirin weyn aan iska awalay markaasaa war ciidanka fiil 2 degan ninkan waa ku baaqaan ciidanka fiil 2 degan oo cabdullaahi yuusuf oo aan xabad ridin haddeer amar si dagaalka geli nagayl haddeer ha ku dhifteen waa cidla markaas waliba ha sii gudbeen oo awaasadan iyo haddeer maqlayno iyo shashamane iyo hore u galeen markaas ilaa ardisaba 50 kilomitr ku jirtaa heeraha harooyinka waaweyn meel la yiraahdo ayaa xagga koonfurta soo xigo oo dhir badan dhirtaas iyo gareen harooyinkaas waaweyn waa soo celinaa ciidanka Mangistu markaasna ruushka wuxuu ku dajiyay kala bayrka ciidamada ku dajiyay taagaal iyo markaasuu yiri waa runta laakiin ma waxaad rabtaa markaas markaa wax fahmaya waa runta waa fikrad fiican laakiin ma waxaad rabtaa niman maxamed siyaada ahayn in la yiraahdo guul waday markaas waxaan israa maxamed cabdullaahi yuusuf shaka ka qaba waana saxbayay markay inqilaab diyaarsanay markaas jala madaxweyne bedel ninka bedel ninka rabto kale u dhib markaas kulligood isugu kaymid ninka marka inta ugu soo jeesto yiri warniyo saaxiibkayga ku moodaya ilaa waxaa taa cadaweyga saanaxada waaga ma hargeysa la qabsanaya jala madaxweyne war hargeysa sheegaysaa marxada la yimaado yiri oo qoostay halkaas niyad jabay dagaalkii sidaas uu ku fashilmay jabkii ku dhacay aad iyo aad ayaa jenaraal maxamed nuur galaal u mahadsan tahay kadib
dagaaladii sokeeye iyo siday u dhaceen bal xalqa ku saabsan ayaanu geli doonaa haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaga laftooda xiiso meerana aad iyo aad u mahadsantahay